Wah. Adin hagga tengah tu. Sorry, it's very much. Single file formation. The UK has been training SNA soldiers in Baydhabo for 2 years now, but this is the first time we've trained a whole company, and we hope to train companies every 8 to 12 weeks in future. They've been learning a variety of skills, from how to build defensive fortifications to patrolling to medical skills, and we hope that they will use these in the weeks to come. Yeah. Now they're back in the section. As you can see, remember the Delta Fire team begin to evacuate the casualties. arrimaha ugu horeeya oo ah amniga howlgallada iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo sidii ay ugu howlgeli lahaayeen sidii isugu furi lahaayeen jidadka iyo naga kaabaysa marka waa dufcaddii labaad oo soo baxdo waxaan jecelnahay in ay waajibaadkooda ay gutaan ayna ka shaqeeyaan sidii tababarkii la soo siiyey oo loo soo tababaray ay uga faa'iideysan lahaayeen ayna uga howlgeli lahaayeen deegaanada ay haystaan cadowga. Abdullahi Isaam Maxamed kana tirsan kooxda labaad. Mano, vai ver o que vai chegar.